hambalyo taliyaha ururka afar-aad ee kumaandooska danab xads gele maxamed shiikh waxa uu ku dhashay muqdisho. waxbarashadiisa qur-aanka iyo iskoolka hoose dhexe iyo sare wuxuu ku dhammeeyey muqdisho. inta u dhexaysay 2-9 ilaa 2-1 tababar ciidan ayuu ku soo qaatay kuliyadda tababarka ee Machad al-Mushaat ee ciidamada dhulka Suudaan. 2-1 ilaa 2-17 waxa uu ka soo shaqeeyey meelo kala duwan oo ciidanka xis. kadib waxa uu baxay waxbarasho dibadda ah, gaar ahaan dalka Turkiga. waxa uu dalka ku soo laabtay 2-19 waxa uu qabtay waaxda hubka iyo rasaasta qaybta 12 Abriil. 2-2 waxaa loo magacaabay abaanduulka ururka 3-6-aad. isla 2-2 dabayaaqadeeda bishii Noofembar waxaa loo magacaabay taliyaha ururka 7-aad ee Gorgor. ilaa 2-2-3-5 waxa uu ka soo qayb qaatay xureynta gobollo badan oo ka mid ah hoose dhexe, Hiiraan, Baay, Galgaduud iyo Mudug. hadda waxaa loo magacaabay taliyaha ururka 4-aad ee kumaandooska danab ee fadhigoodu yahay Balidoogle. heerka waxbarashada waa master degree qaybta National Security. taariikhda kooban ee taliye Maxamed Shiikh.